السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada dhammaan akhyaarta inta janna ku xiran inta cusub dhammaantiin kusoo dhawaada muuqaalkan cusub waa anigoo ah Yaxya Maxamuud Axmed muuqaalkan waxaan kugu soo jeedi doonaa adeeg aad muhiim ah oo ay bixiso shirkadda Google waxa weeye adeegaas aan maanta soo jeedi doono Google Forms wax loo yaqaano Google Forms wuxuu aad kaaga caawin karaa markay noqoto warbixin ururinta surveys markaa sameynaysid imtixaan electronic markaa inaad samaysid rabtid waxyaabo badan ayuu ka caawin karaa ardayda macallimiinta iyo qof waliba oo dad badan inuu macluumaad ka soo ururiyo rabo haddaba hadalka inaan sii badiyo ma rabo aan bilaabano cashirka marka koowaad waxaan u baahannahay si aan u sameyno form in aan marka koowaad browserka furno gmailka inuu kuu furan yahay waa muhiim iyana waxaan ku qoraynaa xaggaas drive.google.com markaad saa ku qorto okay ayaa leedahay waxaa kusoo furmaysa safxadan waxaa ku dhufanaysaa meesha ay new ku qoran tahay new markaad tiraahdo waxaa kusoo baxaysa daaqada kale waxaad xagga ka dooranaysaa Google Forms markaa ka doorato waxaa kusoo baxay daaqada kale falaada from a template ayaa leedahay from a template waxay kuu fududeynaysaa haddii aad rabto مثلا contact form haddii aad rabto waxyaabo hore u diyaarsan si fudud ayaad u tacdiilin kartaa kadibna aad u isticmaali kartaa laakiin haddii aad rabto inaad bilowga kasoo bilowdo waxaad dooranaysaa blank markaad doorato waxaa kusoo baxaysa safxadan marka koowaad waxaad sameynaysaa inaad bedesho ciwaanka ayaa ku bedelaysaa mawduuca aad rabto مثلا warbixin oo kale ama macluumaad ururin oo kale waxaa rabtaa xagga ku qoraysa markaad ciwaanka aad xagga ku qorto waxaa kugu xiga in aad ka bedesho themeka ama muuqaalka guud maxaa la dhahdaa muuqaalka waxaad ka hagaajin kartaa calaamadaas oo customize theme ay ku qoran tahay waxaad dooranaysaa kalarka ku cajabiya background kalarka aad isna rabto farta aad rabto xaggaas oo kale haddaad rabto headerka meeshaa sare in ay kalar yeelato ama aad sawir aad leedahay kala geliso xaggaas ayaad ku dhufanaysaa choose image markaad tiraahdo xagga ayaad ka dooran kartaa iyana choose image si headerka aad wax uga bedesho marka xagga ku dhufato waxaa kusoo baxay safxadan themeska upload haddii aad rabto sawir inaad kusoo computerkaaga kasoo saarto photosna waa Google account-kaaga photos kugu jira haddaba hadda kale waxaan iska dooranaynaa kalarkan insert ayaan leeyahay waxaa arkaysaa in theme cusub uu keenay markaad themeka sidaa u doorato waxa ku xiga intaas waxay tahay in aad doorato su'aalaha aad rabto iyo macluumaadka inaad abuuriso aad rabto daaqadan yar waxay maamushaa waxyaabaha aad soo gelinayso formka xagga waa su'aal cusub sida ugu soo geliso xaggan waa form hore oo ku diyaarsanaa hadduu jiro oo aad rabto su'aal kamid inaad soo qaadato xaggaas aad isticmaalayso xagga title cusub sida usoo geliso kaas oo kala image haddaad rabto inaad soo geliso ama video inaad soo geliso section sidoo kale qayban inaad soo geliso haddaad rabto su'aalahan ku bilaabaynaa hadda su'aashan koowaad ayay ku jirtaa su'aasha koowaad inoogu jirtaa waxay tahay multiple choice su'aasha noocay tahay waxaa ka bedeli kartaa meesha ku garabtaada short answer hadday tahay su'aal gaaban magacoo kale waa short answer magacoo kale xaggaa leenahay magaca xaggaa marka qofka magaca geliyo waxaan xaggaa leenahay remove response validation dib aan ka sharxi doonaa qofka magaciisa sidaa buu xaggaa ku gelinayaa haddii aad rabto su'aashan inay laga maarmaan noqoto su'aasha inuu qofka ilaa inuu buuxiyo maahan uun formka diri karin required ayaad taabanaysaa haddii aad rabto su'aasha waxa aad rabto inayna caddayn ah isleedahay waxaad kusoo dari kartaa description xaggaabaa soo furaysaa description ayaad leedahay kadibna waxaad qoraysaa waxa qofka ka rabto inuu xagga hoose ku qoro waxaa jira noocyo badan oo su'aalaha noocyaha badan leh waxaa kamid ah su'aal dheer hadal dheer oo qor u baahan multiple choice oo su'aalo dhowr wax la kala dooranayo check boxes waa multiple hal xabo kamid ah la dooran karaa check boxeska dhowr baa laga dooran karaa drop down multiple kii u yar dhowdahay hoos baa laga soo furay file upload waxbaad file in lasoo upload karayaa u baahan tahay linear dhammaan su'aalahan
waa noocyo kala duwan oo su'aalo ah waxaan si fudud idin tusi karaa form aan hore u diyaariyey formkan oo ah formkan si ay idin tuso su'aalaha iyo qaabka ay noqonayaan su-aasha koowaad waa magaca si fudud short answer ayaad soo gelinaysaa su-aasha phone number oo kale number ayaad soo gelinaysaa validation ayaa la socda diiwaanka sharxi doona haddii ilaahayna xalqadaha soo socda su-aashan oo kale waa multiple choice labo waxbaad qofka kala doora siinaysaa su-aashan waa linear scale qofka wuxuu kala dooranayaa su-aasha isagoo raacaya ayuu wuxuu kala dooranayaa 1 ilaa 5 su-aashan oo kale hadda waxaan leeyahay sidee u aragtaa muuqaalada janalka aan soo gelin ma ahan muhiim hadduu isleeyahay qofka hal buu dooranaya aad ayay muhiim yihiinna waa 5 inta u dhexaysa ayuu hadba fikirkiisa ka dooran karaa su-aashan iyana waxa weeye waa su-aal drop down ah qofka wuxuu kala dooranaya xaggee kasoo heshay janalka oo kale intaa meelood meel kamid a ayuu dooran karaa sawir sidan oo kale ayaa usoo gelinaysaa video sidaas oo kale ayaa iyana usoo gelin kartaa sidan oo kale iyana su-aasha waa checkboxes qofka wuxuu dooran karaa dhowr kamida ka jawaab su-aalaha adigoo qiimeynaya su-aashan waxaa la raabaa waa nooca loo yaqaano multiple choice script badanka waxaa lagu surveyada loo isticmaalaa su-aasha ayaad waxaa gelinaysaa rowga مثلا teknolojiyadda isticmaalkeeda iyo in sida loo isticmaalaa la bartaa waa muhiim qofka wuxuu kala dooranayaa 5 aad baan u waafaqsanahay ilaa aad baan uga soo horjeedaa waan waafaqsanahay waxba kama qabo 5 ayuu kala dooranaya su-aasha labaad sidaas leeg ayuu isla 5 dooranaya waqti markaa u baahanta inaad soo geliso waxaad su-aasha xagga gelinaysaa kadib xaggaaba waxaa ka dooranaysaa time waqti baa qofka xagga laga rabaa inuu soo geliyo sidoo kale datada u baahanta oo kale waxa aad taariikhda aad rabto in la sheego ee xagga gelinaysaa kadib xaggan su-aasha nooceedana data ayaad dooranaysaa sidaa ayuu kusoo gelinaya sidaa iyo si la-eg ayuu qofka kusoo wada geli karaa haddii aan ku noqdo sidee sawir usoo gelin kartaa sawirka waxaad kusoo geli kartaa inaad taabato calaamadaas add image markaad tiraado waxaa kusoo bixisa daaqadan sawirka inaad computerka kasoo upload garayso markaa rabto xagga ayaa taabanaysaa upload close ama camera ama url kiisaa gelinaysaa xataa google image waxaa ka baari kartaa googlaha haddoo kale haddaan xaggaa ku qoro soomaaliya waxaa laga yaabaa sawiradii la xiriira soomaaliya noo keenaya kadib sawirkaas rabta xaggaa googlaha kasoo gelinaysaa sidaas la eg videogana sidaas oo kale usoo geli kartaa xaggaa baad ku dhufanaysaa adi video eelaada daaqadan ayuu ku furayaa youtube-ka ayaad sidaa uga baari kartaa ama url kiisa xaggaa gelinaysaa kadibna waxaad leedahay select sidaas ay kusoo galayaan marka aad formka buuxintiisa iyo su-aalaha qoridooda dhammayso si aad u aragto sida uu u muuqanayo qofka buuxinaya sida ugu muuqanayo waxaad taabanaysaa calaamadda previewga calaamadda previewga waxay kutusaysaa sida uu u qori lahaa qofka buuxinaya sidee ayuu arki karaa formka sidaas ayuu qofku u akhriyaa su-aashaas oo kale saa text ayuu gelinayaa taa lamid text ayuu gelinayaa taa labadaa mid ayuu dooranaya ma wada dooran karo tan oo kale iyana wuxuu dooran karaa 1 ilaa 5 meel kamid ah xaggee kasoo heshay lamid mid kamid ayuu dooran karaa iyadana waa drop down sidaas ayuu xabad kusoo dooranaya sawirka waa sidaa videoga sidaa ayuu ku daawanaya kadibna su-aasha ku saabsan ayuu ka jawaabaya su-aashan surveyga ahayd iyana ilaa qofka muwaafaqsan ama kasoo horjeedaa lagu ogaanayana sidan ayay usoo baxaysaa waqtiga sidaas ayuu u gelinayaa am iyo pm ayuu siinayaa 8kana sidaas oo kale previewga markaa sidaa u aragto haddii formka aad u baahan tahay inaad waxyaabo kale oo dheeraada ka bedesho settings ayaa taabanaysaa settingska waxaa kusoo baxay general haddii aad rabto in email qofka laga dalbo si uu u buuxiyo waxaad leedahay limit to one response qofka waxaa laga rabaa in uu galo googlihiisa ku galo hal response ka badanna ma gudbi karo
collect email addresses haddaa emailada qofka inuu su-aal kamida su-aalaha uu emailka qofka weydiiya rabana xagga ayaa dooranaysaa. qaybtan qofka foomka buuxinaya haddii aad taa taabato foomka markuu buuxiyo kadib wuxuu awoodaa inuu haddana wax ka bedelo. taa kalena waxay tahay dadkii buuxiyey iyo sida loo kala buuxiyey inuu arki karo qofka u ogolaanaysaa. taa marka laga soo tago waxaa muhiim ah inaa ogaatid presentation qaybta oo ah confirmation message waxa aad rabto mathalan in qofku marka uu buuxiyo uu soo baxo. xaggaas oo kale waxaan ku qoraynaa waa mahadsan tahay. waxay usoo baxaysaa qofka marka uu dhameeyo buuxinta ayaa waxaa usoo baxaya risaaladaas ama messagekaas ayaa usoo baxaya safe ayaa xaggaa leedahay. intaa markay sidaa kuugu dhanto foomka uu saa kuugu diyaarsan yahay aad rabto inaad la share garayso dadka waxaad taabanaysaa send markaad tiraahdo waxaad taabanaysaa meesha email ahaan waad ku diri kartaa laakiin badanka waxaa fiican inaad linkiga qaadato. linkigiisiyo dheer waa kaas. waxaa la sameeyaa sida fiican shorten url ayaa la dhahdaa. wuxuu kuu soo gaabinayaa url-ka foomka kadib aad copy leedahay meeshii aad rabtad ku share garanaysaa. markaa haddii aad rabto toos inaad facebook ugu share garayso ama twitterkana xagga ayaa toos u taabanaysaa. hadda haddii aan linkiga aan qaadano aan xagga ku copy garayno oo saa ugu dhufano waxaad arkaysaa in uu foomkina geenayo sidaas ayaa marka foomka loo diyaariyaa. waxaan rajeynayaa in videogan aan si fiican ugu sharaxnay sida loo sameeyo foomka iyo su-aalaha kala duwan iyo qaababka loo kala isticmaalo. videoda soo socda insha allahu tacala waxaa ku sharxi doonaa xeelado kaloo muhiim ah markaad isticmaalayso foomka ama google foomka kuwaasoo kaa caawin kara in aad waxyaabaha lasoo diro kala saarto nambarada aad tiradooda xadido su-aal intaad weydiiso qofka su-aasha qaabka uu uga jawaabo aad adoo ku dul dhisay aad su-aal kale u dirto. haddii mathalan oo haa yaraado aad su-aal gooni u dirto haddii uu man yaraado su-aal kale u diri karto. sidee website ama meel kale ugu isticmaali kartaa foomka oo xaggaa u dhexgeli kartaa. waxyaabahaasoo kalena iyo kuwa kalena waxaan soo geli doonaa insha allahu tacala videoda soo socda. waxaan rajeynayaa in aad ka faa'iidaysan doontaan. haddii aad hore noogu jirtay fadlan la wadaag cidii aad isleedahay wuu anfacayaa videogan. haddii aad hore noogu jirin nagu soo biir. inta aan video kale idin soo gudbin doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.